bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka soomaalida iyo caalamka ee Somali News 724 waa habeenimo khamiis ah 5 bisha November sanadka 2020 macluumaadka iyo qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wadahadalkii biyo-xireenka wabiga Niil ee u dhaxeeyay dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa mar kale fashil ku dhamaaday. doorka Soomaaliya maxay ka taagan tahay arrintaas waan idin soo gudbin doonaa. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa shaacay inay guulo ka gaareen dagaalka ka socda gobolka Tigray. waan idin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyay ee arrimahaas quseeya. ciidamada Kenya oo warar culus ka fuliyay markale gobolka Gado iyo xiisada qaadka ee Soomaaliya iyo Kenya oo cirka isku sii shareertay. Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare oo hal sabab darteed ugu hor yimid magacaabida guddiga doorashooyinka ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku dhawaaqay. maxay ka wada hadleen madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan xilli Somaliland ay mamnuucday shirarka ay qaramada midoobay ku qabanayso deegaanada maamulkaasi. xog iyo macluumaad dheeri ayaa ka soo baxaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ma wuxuu waji cusub u yeelayaa doorashada ka socota maamulka Hirshabelle. wararkii ugu dambeeyay arrimahaas quseeya ayaan idin soo gudbin doonaa. dowladda Masar ayaa tallaabo adag ka qaaday macallin lagu eedeeyay inuu aflagaadeeyay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa yeeshay. qodobadaas ayaadna ku daawan doontaan saaxiibayaal wararka Soomaalida caalamka ee Somali News 724 fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sargan balaalkana furo una share garay saaxiibada meel kasta joogaan adigoo like kuma tagana inoo reebaya aad baad u mahadsantiin. aan ku bilowno wadahadalkii biyo-xireenka wabiga Niil ee u dhaxeeyay dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa mar kale la warinayaa in uu fashil ku idlaaday. Itoobiya, Masar, Suudaan ayaa mar kale ku guuldareystay inay ku heshiiyaan qaabka cusub oo gorgortanka ah oo lagu xalinayo khilaafkooda sanadaha badan soo jiitamaya ee ku saabsan biyo-xireenka muranka badan dhaliyay ee Itoobiya ka dhisayso wabiga Blue Nile qayb ka mid ah si ay awood koronto u hesho. dabayaaqadii Oktoobar, saddexda dal ee Itoobiya, Masar, Suudaan ayaa waxa ay dib u bilaabeen wadahadalo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta mashruuca 4 boon ee Grand Ethiopia oo dhismihiisa bilaabay sanadkii 2011. lacagta lagu dhisayo dowladda Itoobiya waxay ka amaastay dalka Shiinaha, laakiin kala aragdugnaan ayaa ka dhaxaysay. shaki Arbacadii shalay fashilmay inuu yareeyo duldaraalka ayuu yiri Maxamed El Sabah, afhayeenka wasaaradda waraabka ee Masar. khilaafka wabiga Nile wuxuu sii horinayaa dagaalka sugaya ee dalka Itoobiya qowmiyadaha u dhaxeeya. mowqifka Soomaaliya ayaa arrintan dhexdhexaad ka noqotay ayadoo sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya in arrimahaas ay ka tahay mid dhexdhexaad ah. dhanka kalena gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta waxa uu ka hor yimid guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka uu dhowaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku dhawaaqay. warqad ka soo baxday xafiiska Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu ku shaaciyay sababta ku diiday dhismaha guddigaas, isagoo sheegay in laga tagay xubno uu gudbiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si loogu daro xubnaha guddiyada doorashooyinka. xubnahaas oo 4 ka kooban ayuu sheegay inay ahaayeen guddigii Somaliland ku matali lahaa doorashada, hase yeeshee uu ka tagay ra'iisul wasaare Roble. sidoo kale wuxuu tilmaamay in xubnaha guddida lagu dhawaaqay aysan matali karin Somaliland ama gobolada waqooyi, isaga oo shaaciyay in aan lagala tashan. Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qoraankan ogeysiiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka. sigaasaba ha yeeshee arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo haatan khilaaf adag uu ka taagan yahay sida loo wajahayo doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka imaanaya dhanka gobolada waqooyi ee dowladda federaalka ku matalaya maamulka Somaliland. qaybihii hore ee wararka Soomaalida iyo caalamka ee Somali News 724 ayaa daawanaysaan. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sarkan balaalkana furo una share garay saaxiibada meel kasta joogaan adigoo like kuma tagana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin. markana Kenya, ciidamada dalka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in warar cusub oo duqeyn ah ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka Gado oo dhaca koonfurta dalka Soomaaliya. weerarkan loo adeegsaday madaafiic ayaa ka dhacay deegaanka Damas oo hoostaga degmada Elwaaq ee gobolkaasi Gado. ciidamada ayaa la sheegay in duqeynta ay ku gaareen gudaha deegaankaas oo ay ku sugan yihiin dad u badan reer miyi isla markaana xoolo dhaqato ah. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in duqeyntaas ciidamada Kenya ay ku baabiyeen xoolo aad u far badan oo ay lahaayeen dadka deegaanka. shacabka ayaa sidoo kale bilaabay inay ka barakacaan guryahooda si ay uga fogaadaan waxyaalo ka soo gaarta duqeymahaas ciidamada Kenya ay ka fulinayaan gobolka Gado. ma jiro weli wax hadal oo ka soo baxay mas'uuliyiinta degmada Elwaaq iyo kan gobolka Gado oo ku aadan weerarkaasi. inta badan ciidamada Kenya ayaa dhibaatooyin xoogan ka geysta koonfurta Soomaaliya iyaga oo tacadiga ugu daran ay ka wadaan gobolka Gado ee maamulka Jubbaland.
xiisada u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii dowladda federaalka ay qaaday tallaabo wadigabax ku ah dowladda Kenya taasi oo qaadkii ay Soomaaliya usoo dhoofin jirtay ee gabi ahaanba dowladda federaalka ay mamnuucday. Kenya ayaa haatan wada qorshooyin kala duwan oo arrintaas ay ku xalinayso isla markaana xiriir kala duwan ay la soo sameynayso dowladda federaalka. hase yeeshee dowladda ayaan taas dhagjal qusinin waxaana wadigabax xor leh ay kala kulantay wadahadalkii dhowaan u furmay dowladda federaalka iyo Kenya oo ku saabsanaa qaadka in laga qaado cunaqabateynta saaran oo ilaa haatanba ay Kenya ay walwal iyo walbahaar ay ku hayso ganacsada khasaarooyin xoogna ay la kulmeen dhanka qaadka ku saabsan. dhanka kalentana ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan howlgalka military ee ka dhanka ah gobolka Tigray inkastoo ay jiraan baaqiyo caalami ah oo ku aadan ilaalinta amniga. maamulka Abiy Ahmed wuxuu ku eedeeyay xisbiga TPLF-ka ee ka taliya gobolka Tigray inuu wado weerar ka dhan ah militariga dowladda. xiisada ayaa ka taagan gobolka Tigray kadib markii ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay tallaabo militari oo ka dhan ah maamulkaasi. khudbad uu telefishinka ka jeediyay Abiy Ahmed wuxuu ku sheegay in lagu guuleystay in howlgalka militari lagu qaado gobolka Tigray isla markaana uu sii wadi doono howlgalkaas. dowladda federaalka ayaa horaan xaalad adag ku soo rogtay gobolka Tigray waxaana la xiray duulimaadyadii aadi jiray gobolkaas. bayaanka uu soo saaray Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku yiri qadka cas laga tallaabay isla markaana si dadka iyo dalka loo badbaadiyo oo khiyaarka ugu dambeeya noqdo awood loo adeegsado TPLF-ka. TPLF waxay dhankooda sheegeen in aysan isdhibi doonin oo aysan iska nitri doonin halista weyn. dowladda federaalka waxay dhankeeda sheegtay in colaadda ay wadaan kooxo yar oo dana gaar ah wata si ay u carqaladeeyaan amniga dalka. TPLF-ka waxa ay horaan dowladda dhexe ugu adeegsay inay wado qorshayaal ay ku soo weerarayso gobolka. xisbiga TPLF ayaa awoodda dalka Ethiopia gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano markaas oo kadib Abiy Ahmed uu xukunka kala wareegay sanadkii 2018. xisbiga TPLF ayaa horay maamulka Abiy Ahmed ugu eedeeyay inuu marmarsiyo ka dhiganayo fayraska corona si awoodda uu u siiyo maadaama waqtigiisa uu ka ekaa bisha Oktoobar. hilmaama in aad subscribe bisato gambaleedkana furato una sheergayso saaxiibada meel kasta ay joogaan adiguna like iyo commentigana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin. markaana Somaliland madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Wan ayaa yeeshay wadahadal telefoonka ah iyaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah. labada mas'uul oo muddo wada hadlay ayaa isla soo qaaday arrimo ku aadan go'aankii Soomaaliland ku hakisay wada shaqeynta kala dhaxaysay hay'adda qaramada midoobay. wararka ayaa sheegay in kulanka si gaar ah diiradda loogu saaray sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka iyo macaamilka ka dhexeeya labada dhinac. James Wan ayaa sheegay inay muhiim tahay in dib loo soo celiyo iskaashiga ay la lahaayeen hay'adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliland si hore loogu sii socdo. ilo ku dhow kulanka ayaa soo weerinaya in Muuse Biixi uu ku adkeysay dhankiisa shuruudihii uu hore u soo bandhigay ee ahaa in sida dal oo loola macaamiltamo. Soomaaliland ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay deegaanada ka mamnuucday dhammaanba hay'adaha hoostaga qaramada midoobay iyada oo ku eedeysay inay ka amar qaadataan dowladda federaaliga ee Soomaaliya. xurgufta Hirshabelle ka socota iyo dhaqdhaqaaqa halkaas ee arrimaha doorashooyinka markaana aan isha soo marino. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa jooga ka wada galaangal siyaasadeed oo wajah cusub u yeeli kara siyaasadda maamulka Hirshabelle. ilaa walaalo ku dhow Shariif Sheekh Axmed ayaa Soomaaliya 24 u sheegay inuu Johor u joogo sidii uu u dhameyn lahaa tabashada qaar ka mid ah beelaha Hirshabelle uu ku eedeeyay inay iska horkeentay dowladda federaalka Soomaaliya. xubnaha madasha xisbiyada qaran ee ku dhow Shariif ayaa sidoo kale inoo sheegay inay doonayaan inuu ka hortago qorshaha dowladda dhexe ee ah in Hirshabelle uu ka soo baxo madaxweyne taageersan dowladda federaaliga. ayaa la rumaysan yahay inay wadato madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen. hase yeeshee xubnaha Shariif ku dhow ayaa sidoo kale inoo sheegay in musharax qarsan ay dowladdu wadato. qorshaha dowladda wuxuu ahaa in loo muujiyo Guudlaabe inuu yahay ninka ay wadato si loogu aamusiyo mucaaradka meesha oo badankood ku beel ah si aysan ugu hadlin hanaanka doorashada kadib marka doorashada la gaaro ay la soo baxdo musharaxa kale. waxaa sidaas yiri qof ku dhow Shariif Sheekh Axmed. musharaxa kale ay ku sheegeen inuu yahay Nuur Iido Beele oo ka soo jeeda beesha Xawaadle. xubnaha ku dhow Shariif ayaa sheegay inuu hadda doonayo inuu ka hortago qorshahaas isla markaana xaqiijiyo inuu madaxweyne noqdo Cali Guudlaabe. Shariifka ayaa waxaa socdaalkiisa Johor ku weynayay taliyihii hore ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sanbaloshe waxaana la sheegayaa inuu qayb ka yahay dadaalada lagu qancinayo beesha Xawaadle inay ogolaato Guudlaabe. xubnaha ku dhow Villa Soomaaliya oo la heshay Somali News 724 ayaa sheegaya inaysan wax u jirin sida ay u dhigayaan madasha xisbiyada qaran isla markaana ay taageersan yihiin Cali Guudlaabe Xuseen oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle. qaybihii gabagabada ee wararka
soomaalida caalamka ee Somali News 24 ayaana isla soo gaarnay saaxiibayaal fadlan hilmaam inaad subscribe saarto gambaleelkan afurto una shirgal saaxiibada meel kasta joogan adigoo ku martiga like-na inoo reebaya waad mahadsantihiin ku iyo kun jeerno ay kaga mahadcelinayna dalka Masar Professor maadada cilmiga bulshada ka dhiga jaamacad ku taal magaalada Alexandria ee dalka Masar ayaa shaqada laga joojiyay kadib markii la sheegay inuu aflagaadiyay suubaayna nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa yeeshay xilli uu fikirkiisa ka dhiibanayay kartoonkii muranka badan dhaliyay uu daabacay wargeyska Charlie Lado ayaa macalinka la sheegay inuu u gafay nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ardadii uu wax u dhigay ayaa sheegay mahadili ka hadalkiisu ahaa mid aflagaada isla markaan waxay ku gudbiyeen cabasho ninkan professorka sheeganaya ayaa raaligelin ka bixiyay hadalka ka soo yeeray wasiirka waxbarashada sare ee dalka Masar ayaa shaqada ka joojiyay professorka lagu magacaabo mahadili isla markaana waxa uu amray in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muran iyo dibadbaxyo ay ka dhasheen hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron kaas oo la sheegay inuu u gafay diinta islaamka iyo naxariis iyo nabadgelyo korkiisa yeeshay wadamo badan ayaa ganacsadooda ku dhawaaqay inay joojiyeen iibinta badeecooyinka ka imaanaya dalka Faransiiska waxay sidoo kale hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska si kulul uga jawaabay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ilaa ay gaarto in Faransiiska ay u yeertaan safiirka u fadhiya dalka Turkiga qaar badan oo kamid ah dalalka islaamka ayaa waxaa laga dhigay dibadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo madaxweynaha iyo dowladdiisa Faransiiska guud ahaan daawadayaal waa naga inta wararka Soomaalida caalamka ee kala socoteen Somali News 24 fadlan subscribe saaro gambaleelkan afro una share garay saaxiibada meel kasta joogan adigoo like kuma tagin loo reebaya aad baad u mahadsantihiin nabadgelyo